أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورة التحريم مدنية آياتها ككوبان تهي ولبية toban aayadood. ilaahay subxaanahu wa tacaala magaca loo baxshay suurat taxriim waxaa loo yiri macnaha nebi maxamed alayh salatu wasalaam imtixaan uga yimid xagga xaasaskiisii sagaalka ahaa oo ummahaatulmu'miniin ahaa. marka arrintaasuu ilaahay doonaya inuu daweeyo, waa daweeye ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi: yaa ayuha nabiyu, nabigaan aan doortayo, lima tuxarimu maxaad u xaaraantinimaynaysaa maa wixii axala allaahu ilaahay uu xalaaleeyey laka adiga nebi maxamed uu ku xalaaleeyey, manaa axalahu llahu wey. oo min almaariyati maariyat lqibdiya gabadhii la ohan jiray ahaad, amase malabkii zaynab bintu jaxash aqalkeeda aad ka soo cabi jirtay, maxaa isaga xaaraantinimaynaysaa iskaga diidaysaa? tabtaqii xaal aada doonayso ood markaa raadinayso mardaata aswaajika, xaasaska aada qabto raalligelintoodu ilaah yiri aada raalligelinayso. sida aad ka fahamtay ninka muslimka haw isisaarkan waxaa weeyaan nabiga calayh isalaatu wasalaam sagaalkii sawjaadkiisa ahaa oo xaasaska ahaa markii ilaahay u kaamil yeelay yaa waxaa jirtay iyaduna haweeney la ohan jiray maariyat lqibdiya oo qabiilka masar degoo reer qibdilya asalka u ah oo fircawn ka dhalatay. gabadhaas iyo gabdho kalea laga keenay xagga masar. markaasaa maaragtay mid kamid ahoo maariya la yidhaah oo wiilkii ibraahim nebi maxamed u dhashay ahayd ayaa mataqaanaa nebi maxamed ilaahay u siiyey. marka waxay ahayd haweeney marka addoon ah shareecadda islaamka oo iyadoo aan aqal iyo nawbaa la yidhaahdaa ka loo qaybiyo mataqaana maaragtay habeen uu la hore midna aan hayn, nikaaxna aan u baahnayn. markii nebi maxamed isagu uu yani hunguriyeeyo ilaahay u xalaaleeyey ayay ahayd gabadhaas. oo wiilkaas bayba dhashay ibraahim ayayba dhashay oo saqiirnimo ku dhintay. marka waxaa jira maalin maalmaha kamid a, sheekadaas waa dheertay ma geli karta, siirooyin fara badan oo axaadiis fara badan haysata weeyaan. ayay xafsa xaaskii la ohan jiray xafsa bintu cumar ayay maalin joog waxay u aaday aqalkii aabaheed cumar bin khadaab oo yar xaafad fog ku jiray markaas. nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa ugu timid marka aqalkii xafsa maariyat lqibdiya ugu timid
goor galabtiiba hay soo noqotay xafsa bintu cumar radiallahu canhuma marka dhaqdhaqaaq yar bay dareentay marka way xishood badnaayeen haweenkaasiyo aqalka jalbeebkiisiiba yaraha ku sugtoo fadhiisatay nabigu calayh isalaatu wasalaam soo sagootiyey maariyatulqibdiya ay soo baxeen markii uu yacni ay baxday maariyatulqibdiyana waxay u dhaaftay mataqaana xafsa aqalkeedii sariirteedii ayay u dhaaftay macnaa halkaasay tagtay nabigu hadduu kusoo noqday xafsa aada iyada u caraysan oo u masayrtay ayuu arkay rasuulku hadda rasuulku siduu ummadda kale ugu yahay ra-uuf raxiim iyo xaasaskiisana ugu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka inuu raalli geliyo 100% ayuu doonay marka wax kaloo ku raalli geliyay haddii yacni u suuro geli weysay wuxuu yidhi maariya waan iska xaribay mar dambeeto macnaha yacni anigu uhunguriyoon maayo ee waxaad yeelaysaa ha u sheegin qof bani aadana ha u sheegin xafsay oo saas raalli ku ahaa siira waa sidaas oo iyaduna xadiis bay haysataa aan laciif ahayn oo dheer waxaa kaleetoo la wariyey oo xadiis badan ku soo aroortay nabiga calayh isalaatu wasalaam sida uu u naxariis badnaa markuu casirka tujiyo muslimiinta masaajidka xaramka ayuu soo bixi jirayo hameenkaas haweeneyda uu aqalkeeda u dheelmanaya maahane 8 kaluu soo mari jiray rasuulku waxay ku sugan yihiin xagga inay bukoodeen iyo wixii mataqaana maaragtay baahi ka jirta iyo cudur iyo waxyaalo ku cashiri jiray calayh isalaatu wasalaam xaasaskiisa iyo waa laga hadiyo nabi ninkii bartaa garanaya axaadiistaas marka zaynab binti jaxash yaa nabiga haddii uu aqalkeeda tago bay malab sii jirtay malabay sii jirtay nabiguna waxa macaan waa jecla waxa yacni qaraarka xaraar iyo dhanaankana waa nabcaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxaa dhacday markaa inay xafsa iyo caaisha bint abibakar baa saaxiib ah khaas ahaan marka waxaa la yidhi waa ka uu nebi maxamed calayh wasalam had iyo goor gelayay aqalka xafse aqalka eega raalli ahaada zaynab bintu jaxash waxaad ku tiraahdaa caashay markii uu hameenkii aqalkaaga imaanayo hadduu kugu soo hormaro waxaad ku tiraahdaa yaa rasuul allahi inii ajidu minka riixa almaqaafir dheh markuu hameenkii aqalka soo galo rasuulka ilaahayow afkaaga waxaa ka soo uraya xabag yacni urkeed xabag maqaafirta xabag weeye geedka gumarka la yiraahdo af soomaaliga inkii yaqaana waa geedaha mataqaana yani mataqaana yani maaragtay ilaahay uu ku baaray maaragtay dhacaankooda iyo maaragtay xoogaa kulayla oo ilaahay ku baaray wey markaasu wuxuu yihi rasuulku ilaa shirqoolka udhigaan garan maayee aniga mataqaana aqalka zaynab bintu jaxash yaan malabka ka soo cabaa waa malab an waxaan soo cabaa waxay tihi yaa rasuul allah yacni xabagtaas yacni uraysa geedka ay ka baxdo ayaa laga soo yacni mataqaanaa miiray malabka aada cabto nebi maxamedo aa laga socdo marka wuxuu yihi hadday saas tahay waan iska xaaraantinimeey yani wixii uraya nabigu waa nabcaa oo ka soo cabi maayo mataqaana malab dambe cidna ha u sheegin xafsay qolana waxay ahayd caashay ay yidhahdeen ya adigu shirqoolkaasay sameeyeen adigu sirtii way bixisa xafsa labada riwaayadoodba xafsa sirtii bixishay u sheegtay waxay u sheegtay mataqaana caasha bint abi bakr u sheegtay arrintaa ilaahay waa ka carooday subxaanahu watacaala jibriil buu ugu soo dhigay marka aayadahan sababta nusuulku markaan waxay ka soo qabanno waa sidaas marka ilahi wuxuu subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiy nabi maxamed lima tuxarimu maxaad yacni u diideysaa weeye waxa ilaahay xalaaleeye nabi maxamed ma xarimaye macnaha maxaa isaga joojinaysaa weeye ma wax hadday maariya tahay iyo hadday malabkii tahay zaynab bintu jaxash axalahu llahu ilaahay uu xalaaleeyey laka adiga kuu xalaaleeyey tabtaqii isla marka aada yacni iska diideyso xarimaysana aada raadinayso mardaata aswaajika xaasaska aada qabto raalligarayntooduu ilaahay yidhi sidii buu ilahay kusoo agaasima ayadda waad ujeedaa wallahu ilaahayna kafuurun kii dhaafid badan weey subxaanahu watacaala inta yacni u toobad keenta usoo noqota raxiiman u naxariisanaya kuwa iyaga ah tan kaleeto ila subxaanahu watacaala waxaa la yidhaahdaa nabigu markuu arrintaas ilaahay ogeysiiyey waa arrin dhacday oo rismiya
sagaalkoodiiba rasuulku waa ka haajiri maariyatul qibdiya meel yar oo mataqaana taambuuga ama teendhasaad u taqaaneen ay meesheeda ahayd halkaasuu iska tegay rasuulku waaba ka haajiri bil kaamila ilaa la yidhaha baabkaas maxaa baabka ilaa liladiina yu'luuna min nisaa'ihim suurat lbaqara ninkii soo akrista wuu garanaya halka mataqaana ninka ragga ah inuu yidhaahdo mataqaana haweenaydiisa anigu mataqaana ilaa 4 bilood mataqaana yani mataqaana ku naagaysan maayo waa u banaan tahay waa u banaan tahay ayadaasa ku qarinaysa marka nabigu bil buuba ka haajirayba ka dhaqaaqayba xafsana waxaa la yidhahdaa hal dalquu ku furay waa sida saxiixa ilaa iyadaa shidada keentay marka sidii yani dhaarta nebi maxamed uu ka dhaartay mataqaana maaragtay mataqaana xagga khaas ahaan xafsa bil kaamilana inuusan u imaan kulligoodaba yani nabigu uu ka dhaartay yaa ilaahay furfuraya marka qad xaqiiqa farada allahu ilaahay waa sharciyey farada macnaa sharaca weeye meesha tan ugu sahlan sharaca allahu ilaahay wuxuu jideey lakum adiga nebi maxameda iyo raggaaga asxaabta iyo muslimiintu saban kastaba ha joogeena arrintaas oo kale hadday ku timaado taxillata aymaanikum dhaariyaalkeena furfuridooda xallana waa la yidhaha xallalana waa la yidhaha hadda taxillata waa mastarkii mataqaana xallala wey markaad dhaarataan yani sida aad ku furaydaan taxillata aymaanikum idinka mu'miniinta ragga ah korkaad xaasaskeena ka dhaarataan dhaariyaalkaas furfuridooda bilkafaarati kafaara gud aad ku furfurtaan yuu ilaahay inii sharciyey ilaahay ini jidkaa inii baxshay marka soddon nabi maxamed alay wasalam subaxa ay ahayd 29 bishii uu ka dhaartay markuu soo tukaday salada subaxa ka bacdiba waa kusoo noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam kusoo noqday ogaad meesha iyada ah markaa yaa rasuulallah waa adigii bil qabsaday laakiin waa 29 wuxuu yihi bishu 29na way mataqaana way ku dhamaataa 30na way ku dhamaataa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wallahu ilaahayna mawlaakum bu ilaahay midka adinka ina maamulaya ee sharciga ku kala bixi lahaydeen kan yani nabi maxamed inii sahlo inii sharciyeynaya weeyaan wallahu ilaahayna caliim alcaliim ki cilmi badan weeye oo cilmigu sidaas ku jideeyay xeer bani aadam ma aha maxaa bani aadamku waa gafaa ilaahay sama gafo alxakiim oo xigmo u saaxiibaho qaabka ilaahay wuxuu jideynayo ilaahay kuma gafo laakiin makhluuqu waa ku gafaa وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه أيضا marka waxay amqaadaysaa xafsa mataqaana sirtii nabi maxamed oo bixisay oo isub haystaan iyada iyo mataqaana maartay Caaisha isub haysteen arinta iyada ah ilaahay daha ka qaadaya وإذا سر النبي واذكر بشيء nabi maxamed waa dhihi kartaa id markii asrar النبي ama se udkurata xasuusta xafsa iyo mataqaana iyo Caaisha id markii asrar nabi oo qolaa saas qabta laakiin waa laga fiican yahay marka xasuusta jamacaan dheh id markii asrar nabi maxamed uu siraystay ilaa bacdi azwaajihi nabi maxamed xaasaskii uu qabay qayb kamid ah xafsa weey gabadha xadiisan sheeko oo ku siraysto ku qarsaday markuu yiri yani mataqaana waa iska xarimay ina mar dambe u galmoodo mariye cidna hau sheegin weey فلما مركي وسلاس وشريستي فلما مركي أنبأت أي ورنتي هي حفصة عائشة ورنتي به بسر النبي لي محضرك وقصدي أي ورنتي وأظهر الله إلهينا أدها كقاضي هو وركا سجعة عليه النبي قدوشيسة والنبي قال الشاقي يعرف أقول سيدنا محمد بعده بعد الحديث وركي أي شاكتي حفصة يعني قيب كمده ما ودا الشيء رسولك نينك هدو نينكو حلكسي هنا ورير أطليو أما بيل أطليو أما ودن أطليو waxaa laga doonayaa waxa asaga u ogaaday oo asaga iyo dad kale inta isku qarsadeen khaas ah ama xaaskiisa ha noqdo ama dad kale ha noqdo tala kala dhaxaysay yaani maartay wajiga kuma rido asaas baad yeesheen caynkaas tahay yaani mataqaana hadal xumayn jir xumayn waxaas akhlaaq ma aha nabiga maxamed ka basay sareey alayhi salaam marka arintii warkii ku saraystay markii ay mataqaana Caasha u waranta Xafsa ilaahayna uu mataqaana nabi maxamed mataqaana u sheegay buu carrafa nabi maxamed wuxuu aqoonsiyay bacdahu bacda alxadiis warkii Xafsa uu sheegay qayb kamid ah waa carrada waana keen nabi maxamed
can bacdi gobolka keenatana waa iska daayo nabigu yani si laabteeda aan xatim u gaarin oo haantaaq ugu dhicin iyo dhaawac waa ka dhaafay rasuulka calayh isalaatu wasalaam. taa weeye marka u sheegay uu yihi arrinta iyada ahayd miyaad bixisay, waxay u qaadatay caasha inay sheegtay, halkaas iyadu maraysay. falamaa markii nabaa nabi maxamed uu sheegay u warramay xafsa bihi bimaa afshad waxa ay fidisay oo waraha ayuu mataqaana u sheegay bay qaalat tiri xafsa mankeeba anba'aka kuu warramay adiga nebi maxamede hadaa warkaan way naxday yaa kuu sheegay. qaala nabi maxamed wuxuu yihi naba'ani alcaliim, ilaah cilmiga badan baa ii warramay aniga, alkhabiir hoosaan ula socday wixii aad fidisa adigu wey ood sheegtay oo sirtayda ah. iyada waxba lama ahayn markaas. in tatuubaa ila allah, arrintii inay fogaatay oo ilaah la carageliyey oo caasho iyo xafsa ay meel ka dhaceen yani booraan ah yuu ilaahay caddaynaya subxaanahu watacaala, iyo darajada nebi maxamed meeshuu ka joogo inaad ummaddu ay wada garan xataa muslimiinta. ilahay wuxuu yihi in tatuubaa haddaad soo noqotaan xabsho iyo caasho ilallah ilahay haddaad soo noqo toobad keentaan falitawbatikumaa muujabun, toobadkeenkiinas aada soo noqotaan yani mataqaanaa waad dambaabudeena toobadkeena bilaash layni oran maayee yani muujibun dheh wax yani waajibi macnaa muhbit oo suga ayaa u sugnay toobadkeenkiina. dembi weyn baad samayseen oo aadnaan ma ka fiirsanin oo nebi maxamed baad mataqaanaa sirtiisi intaad isbixisay taasuna ay raalli ku noqotay ayaad meel uga dhacdeen nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam. ogaada markay soo noqoshadiina ilaahay uu yihi haddaad toobad keentaan falitawbatikumaa, labadiina toobadkeenidiina waxaa yani usugnaaday oo arrinta yani mataqaanaa sugaya oy waajib idinku tahay inaad toobad keentaan yani mataqaanaa muujibun wax yani sugaya oo caddaynaya inaad dambowdeen. waa tan arrintii faqad xadiga saqad quluubukumaa, labadiina laabihiinni waa iisheenu ilaah yiri. sidii taqwada ilaahay ahayd oo nebi maxamed mataqa raaligelintiisa ahayd ood rabbi ku raaligelinaya rasuulkiisa waad ka weecateen, laabihiina waa ka weecdeen. ee waa in tadaaharaa haddaad isugu kaalmayseen calayhi nebi maxamed dushiisa labadiinaan oo isu bahaysateen fa ina allaha ilaahi huwa asagaa mawlaahu naasiruhu, nebi maxamed gargaarihiisa ah wakaas. wa jibriil baa naasiruhu gargaarihiisa nebi maxamed. wa saalixu lmu'miniin, muminiinta midkooda wanaagsan ayaa si abubakar oo kaleeto cumar oo kaleeto. maxaa yihi cumar markii uu mataqaanaa inte xaafadiisa ka soo kacay asxaabtii u yimid wada yani murugaysan u yimid maxaa dhacay oo la yihi xaasaskii nebi maxamed furaa la yihi waana ka haajiray oo gabadhiisa xabsa inta u yimid yiri nebi maxamed mayna furay ma furiin ma maqal bay tiri laakiin naga tegiye wayna wada dulaysan waa wada ooyayaan. uu yihi mataqaa nebi maxamed waa idinka raysanaya, kulligan hadduu inu furo waa idinka raysanaya, inii baahan maayo adinkaa u baahnaa yani adinkaa nebi maxa ka gardarnaa, adinkaana daalimaad noqday ogaada. arrintu sayd cumar uu yihi yaa ilaahay mataqaana kusoo dejiyay ayadan, iska fiiri meesha ayada. marka waa in tadaahara haddaas u weelmaysen labadiinaan cashiya xafsoy calayhi calaa duri nebi maxamed dhibaatadiisa korkeeda fa in allah ilahi huwa asagaa mawlaahu naasiruhu, nabigiisa maxameda kan uhiilinaya. wa jibriilu malaku jibriil baa naasiruhu gargaarihiisa nebi maxamed. wa saalixu lmuminiin, muminiinta midkooda wanaagsan yaa nebi maxamed saalix yaa naasir oo gargaaraya. intaas waa intaas. wlmalaaikatu malaaigta oo dhanna bacda dalika bacda yani mataqaanaa nusrat illahi wa nusrati jibriil wa nusrati saalix lmuminiin, ilaahay gargaaridu nebi maxamed gargaarayo, jibriil uu gargaarayo, muminiinta kooda wan uu gargaarayo dabadeedna malaaigta oo dhan yaa dhahiirun kuwa u kaalmaynaya ah. intaasoo dhan maxaa ilahay keli baa u kaalmay karee maxaa ilahay intaas u keen inuu ilaahay kaalmeynayo, jibriil inuu kaalmaynayo, muminiinta inay kaalmaysa koona wanaagsan, malaaigtoo dhan maxaa loo keena. macnaha haddaad adinku yani labadiini aada nebi maxamed mataqaana maaragtay iska kaalmaysateen oo dhibaatisa isu kaalmaydeen ood barbar ka noqoteen oo adinku isla fiican tihiin, intaanoo dhan buu haystaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo gargaaraya. waxba ma andaan garan bu ilahay iyo canaanta socota fiiri, canaantana waa soconaysaa waqti dheer. casaa rabbuhu waa sida
cumar bin khadaab markii hore ku canaantay nebi maxamed rabbigiisu wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna nebi maxamed hadduu ini furo in dallaqa huwa nabigu kunna adinka waayo in dallaqa hadduu furo nebi maxamed kunna adinka oo dhan sagaalkiina wuxuu ilaahay mudan yahay an yubadilahu labada qarin waa la akriya an yubdila inuu u bedelayo huwa ilaahay hu nabiga maxameda aswaajan xaasas kuwaasoo khayran ka khayr badan min kuna adinka aswaajhaasoo muslimaatin kuwa ilaahay mataqaanaa sida ka muuqata ilaahay kuwa isu dhiibay ah kuwaasoo mu'minaatin mukhlisaatin u gooni yeela camalkooda yacni mataqaana oo laabtooda dhame ay nuur tahay kuwaasoo qaanitaatin mudiicaatin adeecsan ilaahay iyo rasuulkiisa kuwaasoo taa'ibaatin toobadkeena iyo leyl saacad bisaaca kuwaasoo caabidaatin ilaahay caabuda kuwaasoo saa'ixaatin sooma waa meesha la yidhaha xafsa yaa ilaahay wuxuu ugu soo dhihi jibriil way soom badan tahaye meel walba si kastaba ha kugu gaftee soo celi ilaa hal dabqa ku falaa la yihaah nabigu calayh isalaatu wasalaam kuwaasoo hayibaatin garooba ah ama carmaliyaa sida loo kala yaqaano kofur iyo waqooyi oo iyo waa abkaaran bikaarooyina maxaa yihi caasha keligeedaa bikaara ka ahayd oo nebigu ku guursaday sideeda kale u kaalmeynay iyo awlaadooda waa ra-uuf raxiim garoobay ahayd yaa ayuha nabiyu nabiga maxamed yaa ayuha aladiina aamanuu dheh ilaa rasuulkiisa kuwii rumeeyeeno quu ilaaliya anfusakum nafyaalkeena raggaa lala hadlaya xasaska iyo caruurta leh nafafyaalka bal adinka laftiina haddaad nebi maxamed raacsan tihiin horta nafafyaalkeena ilaasha waxaa soo socda ka ilaaliya oo imaan khaarisa camal saalixa la imaada wey iyo wa ahliikum yani qoysaskiina oo yani aswaajteen iyo duriyadiina naaran waa taas ma ujeedaa naartaas ka ilaaliya waxaa soo socda waa naartaas ka ilaalisha waa camalkii kugeli aad ku geli lahaydeen adinkan odayaasha iyo xaasaskiina iyo caruurtiina camalkaasna aad kugeleydeen iska fogaado oo camalka jannada kugelaysaa nabi maxamed a idin sheegay waa imaan khaalisa camal saalix ku sugnaada wey naarta waquuduha iyada waxa lagu horin lagu shidayaa annaasu dad uu yahay waa mushrikiinta gaalada wey iyo walxijaaratu dhagax oo waxay caabudayeen weeye soo hadda dabkaasoo markii madagta la baxsho waxaa yani matala lagu luleeyay ku baxda marka hore sooxaabo maahan iyo caws dadka ahlu naarka iyo naarta jahanamo markii laga buxsho milyan yay kor ukacaysaa markaas ilaah naga nabadgelshe oo mataqaana iyadaas xaabadii lagu shidaya iyagaasaa noqonaya naarta sidaas ah ka nafyaalkeena xaasaskiina caruurtiina ka ilaashu ilaahay taas waa subxaanahu watacaala naartaasoo calayha iyada dusheeda malaa'ikatun malaa'ig ay ku sugan tahay malaa'igtaasoo khilaadun qallafsan bilficli ficilka ama bilqowli hadalka ay leedahay waa midii aan tegi doona insha allahu tacaala ilahay u suuratulmudathir calayha 19 wey waa tegi doona insha allah waa zabaniyadii suurat lqalm ilahay ku sheegay subxaanahu watacaala suuratu yani mataqaana ku sheegay subxaanahu watacaala qalam ku sheegay yani ficil qowlkeedu uu adag yahay oo wax naxariisa ilahay uusan gelin malaa'igtaasoo shidaadun ku adag bilficli deh bilqowli baan khilaad ku fasinay khilaadunta bilqowli hadalka kasoo baxaya aan naxariis lahayn shidaadun ku adag mataqaana bilficli ficilka ay dhiibayso oo ahlu naarkaas ay naarta ku shubaysa iyado ficilkeeduna waa kaas war naarta sidaasa ka ilaasha nafyaalkiina iyo xasaskiina iyo caruurta ilaahay malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaha ilahay aan caasinayn marna aan caasinayn ma caasiyan iyagu laa yacsuuna allaha ilahay aan ku caasinaynin maa wixii amarahum ilaahay iyaga uu amray kuma caasiyaan oo caasi maaha oo yafcaluuna falaya samaynaya maynu wixii la faro oo fulinaya wey waa tanfiidka fuliya si degdega u fulinaya ya ayuha aladiina kafaruu labada ayad waa isku wada jiraan waa isla socdaan taa hore iyo midaan waa isla socdaan qaala tacaala ilahi wuxu uhi subxaanahu watacaala markii naarta kuwaan xabada looga dhigayo oo gaalada ah iyo wixii muslim magac muslimba ha sheegteena raacsanoo kuwa camalkooda raaca markii lagu shubayo iyay malaa'igtan qallafsan oo hadalka kulul oo ficilka adag waxay kuleeyihiin
يا أيها هوي الذين كفروا كفروا بالله وبآياته وبرسله الله إي آيات الرسول كفر الدنيا مكاد جوكتينو لا تعتذروا عذر دارنا ملائكتك أورني سبانية ده اليوم مات ويوم القيامة ها عذر دارنا إن ما سكل ما هانه تجوا سنة وحلينكم أمال قضية ما وحي كنتم بدوك هذا هنك الدنيا جوكتين تعملون أنكم عمل فشان كفر إيه كبركي إيه شرع دجالنكي أيام ما تلينكم أمرين والنار تصل لكم شوية يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي المرة بعد با إلهي توبة كان كعام لكن لبدي حفصة إيو متقانا إيو عاشا إيا لوغ سيد اللي هولي لوغ سيد اللي إلهي وحير يا أيها الذين آمنوا إلى رسول سكوير هميانو لما أنتين برهوتا توبوا صون نقطة وح معصية العاسل اللي يراهدو وذوقتهن إنا يدنب التهي كالصون نقطة إلى الله إلى داعتي إلهي راعد أترعسنتهين الصون نقطة يا اللي يري إيا رسولك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توبة ومصدر صون نقشة وصون نقطة توبة مصدر كذي وي توبة دون نصوحا نصيحة بدن نصيحة بدن رون ميرد بدن وي فصوم عليك وصار متقانا إلى نصوحا باليري سكا سكر إذا متقانا إن كوجي متقانا معنى زائد نصيحة بدن وحي مفسرين تكون فسران رحمهم الله فسر جيرين هذا وحبا كمان نوليه نصيحة بدن قفك يعني توبة يعني ما ركتي كد داله وإيمان كيسي إيه فعل كيسي إيه قول كيسو إلهي توسيه وتقق النقطة قفكاس أسقع توبة داس وطون نصوحة يا قفك أركاه إلهي وطوبة كان قفكاس أركا وجيسة قفك أركا تقوديسة يا بإلهي كهنونيا إنه إلهي توسع عابده وتقي أسرع سبحانه وتعالى معنا أساسا لوتشيله عسى ربكم ربكين وحب بدنيا هالي المؤمنين هذا أساس يا شان أن يكفر إلهي إنه متقنا دافيه عنكم حقين سيئاتكم أي ذنوبكم دبيالكين إنه دافي إلهي أنه دافي سبحانه وتعالى يعني أساسا لوتشيله ويدخلكم إلهين أدينك إن قلنيو جنات بساتين في بساتين ويبير دحدوده إلهي إنه إني قليد دونه جناتكو بساتين تو تجري أي دولة يسمى من تحتها بيرها سوستوده الأنهار من قده أفرتي وبي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أي صعون أيام وبيال أن قوين ووساق يمتقانا دباتاء لهين يقرآن لهين قرار آن لهين قرآن لهين عدك حجابة أي سجل أن لوينين معان بدن سيدا نفتاد الربطوي سبحانه وتعالى قلني يوم ما لنبو إلهينا يعني دنب الآن من كدقيا ظاهرون أبقون إنسان كنا كسين قلني يوم كل لا يخزي الله إلهي وسنه جدون النبي نبيك صوبنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين كو إلهي وسنه جدون آمنوا صدقوا بالله وبرسوله محمد رسولك اسم محمد ووحي النبي محمد أكينا وحيية كعمر فرية إلهي مالك من جنيه مركا يجي فيري يعني متقانا أمر كيف هميسا يعني لبدي هوانك النبي محمد أو يعني متقانا عاسية لفتودي إن يبيانها ميل كدعين يا مش الله الشرعية رنتو واسعون يساق إلى كذا بيصعد دونتا إلى سورة آخر كل واد دونتا والذين إلهي وسنه النبي مالك وسن إلهي النبي هو جني يكون يعني مؤمنين تا معهم مع النبي محمد متقانا إلهي رميين وي وناك كل سعودين ونخلاف كل سعودين النبي محمد عند باتوا كين سيد المنافقين يا مجرمين نورهم كوا مؤمنين تا وإلهي نبي جود يا وسن هو جنين نورهم أيجا إف كب حيا يسعى وحص عنيا بين أيديهم هرتود أمامهم وي وأمرك لما على جسر جهنم لما رجويان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أن صمرنا وجو سورة مريم أن صمرنا مركا وحوي ما شاسو ومل مقد بدن وقد عرب بدن وي جهنم لما تقان أهل النار أي كوجوريس ولا وشو بيوي مركا دوش داس وحمر يبون ضد أمام مريش ده هالكاسة أمده مركا هراء أي مريسة
marka intii nabi maxamed ku raacday iimaanka iyo camalka saalixa ilaahay wuxuu u ifinayaa iftiin waa nuurkoodii waa iimaankoodii iyo camalkoodii saalixa adduunyada ay ku mitideen weeye markii laga dhaqaaqay ogaad marka yascaa nuuruhum muuminiintaas yani mataqaan nuurkoodu mataqaana wuxuu yani ku soconayaa hortooda yascaa bayna aydi amaamahum iyo wa biaydihim yascaa nuuruhum yascaa bayna aydihim hortooda iyo wa biaymaanihim midigyaaltoodu ilahiya yascaada ficilkeedi waa nuuruhu nuurkaas weeye xagee uu soconayaa meesha ay ku socdaan hortooda iyo midigyaalkooda midigtu qiimaha ay leedahay bidixda lama dhixin ifkaasaa u soconaya suuratulxadiid waa kusoo marray munaafiqiintu marka hore ay la soo galaan meesha buundada ah mataqaanaa iyaga waa laga baktinaya ilaa nuur ma lehen waa munaafiqiine markaasay leeyihiin muuminiinay waa tan adduunyada wada joogi jirnay oo ilahay wada caabudi jirnay yani mata nuurka wax naga siiyo nasoo fiirsha marka gadaal unoqday le gadaalna ka heli doontaan marka xijaabaa la dhex dhigaya waa taa meesha iyada ah yaquuluuna waxay dhahaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow waa markay halkaa marayaan tafsiir baa sidaa qaba saxiixa atmim kaamiliye lana anaga nuurkeena noo kaamiliye maxaa yihi muuminiintu ma iimaan sinna adduunyada waa sidaas ma camal sinna gobol baa waxay ku marayaan mataqaana sida mataqaana hilaac oo kale gobolna sida shimbiraha dheeray oo kale gobolna sida ninka fardaha dheeray oo kale hadise baabuurtana ka ordaysoo kale gobolna mataqaana maaragtay iyagoo soconaya oo kale gobolna mataqaana iyagoo mataqaana gurguurinaya hay gobol mar iftiinkoodu mataqaana lugahooda hoostooda oo kaleeto ku ifi wax yar weeyaan saasaa loo jeedaa markaasay leeyihin yaa rabbi kuwii yani ugu iimaanka yaraa ugu iftiinka yaraa waxay ka baqayeen inuu yani nuurku ka baktiyo yaquuluuna waxay dhihi doonaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno atmim dhamaysta noo kaamiliya lana anaga nuurana anaga nuurkeena oo sida munaafiqiintaas ila wax naga baktiini waqfir dhaaf lana anaga wixii naga hormaray adduunyada oo aan samaynayna oo dadka kale munaafiqiinta naarka mataqaana ay naarta ku galeen annagana mataqaana adiga wax naga oge wixii naga degdegay ilaahu noo dhaaf inaka adiguna calaa kulli shay wax kasta dushiisa qaadirun ilaah uu wada aata yaa ayuha nabiyu nabigan maxamedo jaahid la dagaalna alkufaara kuwa kufaarta waa markaa jihaadka la waajibiye weeye bisayfi seef yani gacan ah kula dagaala walmunaafiqiina munaafiqiintana kula dagaala mataqaana bilqowli hadalka kula dagaala waqlud waatan ku qallafsanaad nabi maxamedo ku adkaad weeye calayhim kaafiriinta muminiinta munaafiqiinta dushooda oo sida waa laba qaybood markaas haddii la yidhaha mata waqlid ku qallafsan ku adkaa calayhim haddaan dhirahno cala lkufaari ale dusheedii waa bilficli wey ficilka kula adkaad wey haddii calayhi munaafiqiinta loo jeedana yani munaafiqiintu waxay ahaayeen ilaa hoos ilah kama rumaysan waa hoos ka gaale yani mataqaanaa waxay u badan yihiin mataqaana maaragtay inay zinaysanayaan in mataqaana maaragta ay waxadayaan marka xuduudda lagu soo rogaya ayagiina gacanta laga jarayo yani xadkii zinada laga goynayo ha wada cabaadeen wey ayagana ayadaha kusoo degayo naxtinta lan soo mara suurat lmunaafiqiin oo kale meel walbaba mataqaana dhibaata ka haysata iyagii dhibaata ka haysata taas ogaad laakiin kaafiriin iyo munaafiqiin waxay isugu tegayaan waa halkaan wa ma'waahu malka ay ku hoyaadayaan kaafiriinta iyo munaafiqiintuna jahanamu naarta jahanamo wayuu ilaah yidhi anigaa abuuray jahanamo nebi maxamedow way igu filan tahay kulayl iyo ciriiri iyo qurmoon way igu filan tahay iyadaa ku filan anaa garanayu ilaah yidhi wa bisa waxa xumaadu ilah yihi almasiiru meesha la ahaanayo waa jahanamada lafteeda ilahay naga badbaashay subxaanahu watacaala daraba allahu mathala aladiina kafaruu imra'ata waatan waxaa loo soo noqday marka maata inkastoo muslimiinta dhan oo haweenka la qaba iyo ragga qaba iyo kulli ay isku imaan doonaan misna waxaa looga sii dan leeyahay xafse iyo casha looga sii dan leeyahay ilahay wuxuu yihi daraba allahu daraba maanta waxaan ku qadarnay jacala daa'iman laba mafcuul ay qaadataa sida badan ay qaadanaysaa daraba allahu jacala allahu ilaahay wuxuu ka yeelay mathalan qiso la yaab leh liladiina kuwi wuxuu uga yeelay kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin nabi nuux xaaskiisii oga subxaanahu watacaala uga yeelay tahabal firi iyo wamra'ata luud way ku cadfan tahay nabi luud haweenaydiisii yula oga subxaanahu watacaala meesha iyada ah meesha iyada waa laba rasuul aad arki doonta laba rasuul wey labadoodii oo nabi nuuxoo la garanayo iyo nabi luud ad garanaysa labada qur-aanka ilahay had kusoo celcelsho
labadii ay qabeen kaafirataan bay ahaayeen ilahi subxaanahu watacaala kaanataa waxay ahaayeen labadaas haweenka waa xaaskee nuux iyo xaaskee luude taxta cabdayni laba addoon hoostooday ahaayeen ilahay waa nuux iyo luud wey cabdooyinkoo min cibaadina annaga addoommadeenna kamid ah cabdooyinkoo saalixayni laba suusuuban ah waa nabi mataqaanaa nuux iyo nabi luud sifaadkaa waxaa iskale hadda maanta oo laba rasuul bay la noolaayeen oy xaasas u ahayen wey fakhaanataa way khayaan way dhagreen haweenaydii nuux bay khayaantay haweenaydii luudna nabi luud bay khayaantay ilahay saasuu ku yahay subxaana watacaala ay khayaantay way khayaameen ha u qaadani macnaha yani khamri bay cabi jireen haweenkaana maya waa zinaysadi jireenna maya siirada waxay warinaysaa rususha ilaahay oo dhan xaasaskoodii mana sinaysan jirin khamrina ma cabi jirin ma jirin laakiin labadaana waxay ku khayaan maxay ahaayeen luudna waad garanaysaa markii yani mataqaanaa marte oo dhalinyarahan luud u yimaadaan yay haweentoodu mataqana nimankii mataqaanaa yani dabada ka qaniisi jiray weshararka bay u sheegi jirtay u baaqi jirtay waa soo marnay mataqaanaa suurado badan baa kusoo marray suuratu huud yaan kusoo marray baaqi jirtay way dhihi jirtay mataqaanaa waa adeeryaalkeeda mataqaanaa iyo saaxiibadeeda meeshan waxaa jooga wiilasha aada jeclaydana kaalayay dhihi jirtay kaniisnimadaasay soo hogaami jirtay nabi nuuxna waxay dhihi jirtay waa waalanyi anaguna wareershay war kama haysaane waan iskala noolnaha iska sabrayna mayo aniga wiilkayga iye waa waalanyahay dhihi jirtay saasay dhihi jirtay soo arki maysa marka taasaa ilaahay ku haystaa subxaanahu watacaala way kufriyeen labadiiba marka ilahi wuxuu yihi fakaanataa waxay ahaayeen haweenaydii nuux iyo haweentii luud humaa labadoonaas fakhaanataa way khayaaneen rasuul labadii rasuul falam yuqniyaa marka labadii addoon oo saalixaynka ahy waa nuux iyo luude waxba ugama tarin canhumaa labadood xaasaska ahaa min allahi min cadaab illah le cadaabkiisa uu kusii daayay xaggiisii shay-an waxba saas subaan inta dunida hadda noosha qabriga ay ku jiraanna cadaabulqabri baa gubaya waa lagu soo bixin waa lagu xisaabin jahanamaa lagu waarinaya maxaa labadii rasuul ay khilaafeen xafsa iyo caashaa laleeyahay isjira marka isjiraa laleeyahay ma ujeedaa meesha iyada ilaa wax axadka ini qaba waa afdal rusul waa nebi maxamede rasuul anaga ninkeena waa rasuulka nebi maxameda waxaan doon samay karnaa أشهد أن
قال تعالى إلى سلوه سبحانه وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة meesha waxaan noqonaynaa yahay mataqaana adinka naga soo dhaxgalay say ayadaha dambeeto mataqaana ilaa khatanka isla qabsada ilaahay wuxuu darab Allah ay jacala Allah ilaahay wuxuu yeelay mathalan shakal la yaab leh lilladina ku u yeelay kafaru gaaloobay imra'atan nuux zawjatan nuux way rasuulkii nuux ahaa yani xaaskii uu qabay وهي سبحانه وتعالى هي وامرأة لوطنا كعطفا رسولك لوطها هو نيدي حاسكي سأقبل ولا ما يقول سبحانه وتعالى كانتا وحي أهاية امرأة نوح امرأة لوط وهي تحت عبدين لبا أدون هوستو دي أهاية أي أهاية إلهي وكاسوحه لما يصير رسول أيو إلهي لبا أدون كشيء نعم سورة الإسراء وحن كسر من أول كيدي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا النبي عليه الصلاة والسلام سيريس وحكم ده هنا أصحاب تديه جري إلهي سبحانه وتعالى وحن وأنكر الجيني ونكو عبد الجري وقو أدون صدي إن إلهي يقبل وحن كر الجيني مركو يجري بعبده الليل عبده موجود أدون كيسي وأدون مدي إنا انقرتي ونكو عمل فري ayaa hadda mataqaana ii dhawaatay buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka saas way abdiga aad maqlaysaa abdigu sidaa way marka ilaahay xoga yeelay labadaas haweenka waxay ahaayeen taxta abdeynade laba adoon hoostooday ahaayeen oo la noolaayeen abdooyinku min cibaadina adoomadeena anbiyada ahaa yaani mataqaana kamid ah cibaadada loo sheegay meesha waa rasuushii kale عبدينكو الصالحين صوبانو إلهيين ونمرنا النعاسل أنك فخانتا مركا ويخيانين ويدكرين هوين يدي نوح هوين يدي صالح نوح يا صالح ويخيانين إلهيين ويخيانين واتان صومر كنا قم مسائل وخيانين ومدنا أي تري نوح هو يعني وواليه aniga iyo wiilkayga meelaha ka galnaa lacna ay tiri taas tanina hadda ma taqaanaa waa soo marnay luud wixii ay ma taqaanaa martiisa ku sameey jirtay ku sameey jirtay oo markii martida u timaado nabi luud illa waa rasuul waa deeqsiya oo raba inuu yaani sooro wiila dhalinyaraha aakhirkii xataa kuwii halaagooda waday oo yaani jur hogaaminay مثلا مارتي اي تري دبي شدي جست markii qaac casmo u jeeda uu baxo way garanayaan ma taqaan in wiilashay dhalinyarta ahaa way qaniisi jireen inay yimaadeen saas ku khiyaanta iyaduna taas ku khiyaan markii ma taqaan marka ilaahay marka cadaabay iyagana illa wadogto markii halaagii duufaanka nabi nuux yimidna wiilkii caasiga ahaa oo nuux unugu nuux oo markay biyuhu ay la sii tagayeen intuu arkay wiilkiisi ila waa waalid uu yiri mataqaana ehelkii ka mid yahay ilaahu waa ehelkii waa wiilkaygi ilaahay wuxuu ugu jawaabay innahu laysa min ahlika somali innahu awlu ghayru salih fala tasallim ma laysa laka bi ilm so ilaahay ma dhihin waxaad leedahay nuux waa ehelkaygi ehelka ma huwa ilaahay duu ehelkaaga yahay muxuu amalku ugu soo raaci waa intaan cadaabka ku imaan haweenaydiina waa kharaaba loo sii qaarajiyay badda sii qaarajiyay biyaha stofaa sii qaarajiyay halkaasay mareen soo arki maysa taas weeyo loo jeeda markaan halaagii keenay waa kan falam yuqniya madiqin ilahi labadii adoono labadii rasuul ay ahay anhuma labadii ay qabeen oo ku soo raaci waayay shariicadan u soo dejiyay labada rasuul xaqooda شيئا شيء كما دقيقة كما علم وي شيء من الله من عذاب الله إلى عذابك كان كمتها وحباء مطر سؤال كم يسوى كاس مركا أنا قم متى ما رأيتي نوليها إذا لقي رسول النبي متى أهل البيت بقى إذا لقي عين كاسة يتهائي واحد وانا كو أبتر سنة مية وطن سكفيري ماشاس وحي كوتر يا مال هذا إلهي خلافته waxay ku qabanayaan wata aayada quraan soo saarka bis
waqiila waxaa lagu yidhi labadii haweenka ahaa tii luud iyo tii nuux weeye udkhulaa galaa la yihi annaara naarta galaa la yihi ma ujeeda naarta galaa la yihi ilaa shaqadii labada rasuul mataqaana aada la kaalmay lahaydeen oo jannada kula geli lahaydeen adinkaa diiday kafaradaad raacday soo arki maysa udkhulaa gala annaara naarta gala dabka gala maca daakhilina kuwa naarta gelayood adinku raacsanaydeen ood jeclaydeen micigooda la galaa la yihi kuwaas la galo ilahay subaa kuwaas la gala dunya aakhira halkaas la gelaysa taasi waa halkaas wadaraba allahu wajacala ilaahay wuxuu yeelay masalan sheeko la yaab leh liladiina kuwi wuxuu uga yeelay aamanuu rumeeyey billahi wa biaayaatih ilahay aayaadkiisa rasuulkiisa imra'ata fircawn waa annaga ninkii fircawn ahayo kibri oo qibdiga ahaa oo yihi anaa rabbukum ulcalaa rabbigiina saraynta badanaana inaad caabudaan rabo oo reer qibdina ku raaceen ilaa muuminkii miskiinka ahaa mooyane qaala rajulu muminu min ali fircawn tum iman ninkaa keligii ma ahani intii kale iska daba shuban ilahnimo loo caabuday haweenaydiisi wey imra'ata fircawn haweenaydiisi wey nabi muuse oo gurigeedana ku noolaa oo markii horeetaba ay hooyo camal u ahayd markii dambena fallaagoobay markii ilaahay mataqaana rasuul ka dhigay oo masar ku soo noqday dadkii iimaanka u hormaray oo ka qaatay oo rabbi la caabuday ayay ahayd xaaska fircawn soo arki maysa meeshaan ayay ahayd marka ilaahay wuxuu yani u jideeyey arrin la yaab leh liladiina kuwii aamanuu rumeeyey ilahay intuu yihi rumeeya imra'ata fircawn zawjata fircawn haweenaydii fircawn subxaana wa taala id waqti buu ilahay ujeeday subxaanahu wa tacaala mu'miniinta gabadhaas qaarad ay tiri hiya imra'atu fircawn waa sawi fircawn rabbiyow rabbi ay meesha ku taalle ibni dhis li aniga kan cindaka adiga agtaada beytan aqal iga dhis beytkoo fi ljannati jannada gudaheeda ku sugan imtixaamun fi diin wey soo arki maysa diinkeedaa lagu imtixaamay aqalkii boqortooyada oo ninka rabbi sheegtay mataqaanaa halkaasay ku nooleen waxana uma dhalin sida saxiixa inkastoo sira tiraa gabar bay dhashay la yihaah ilaah baa garanaya marka wuu cadaabay calaa ayi xaal wuu cadaabay anigii rabbiga ahaa oo ilaahay mataqaanaa reer qibdi ahaa oo reer masar ahaa oo laygu inaan rabbi ahay nin xumoo yani ul iyo qamiis wato muuse la yihahda hadday iga raacday oo rabbi aan la aqoonin ay u yihi ila caabuda oo intaas ku raacday ciidankiibu inta usoo diray ayuu yihi mataqaanaa laba si u cadaabi jiray dadka laba si u cadaabi jiray fircawn mar mataqaana maaragtay geedaha timirtaas salkooda iyo halkaa looga dhufa jiray musmaar qofka halkaasna waa looga dhufa jiray waa la taagi jiray salbi baa la yihaah meesha mataqaana maaragtay xagta korkeedana mid waa looga dhufanaya meeshaan iyo meesha kale saasaa loo taagaya marka qofka isma dhaqaaji karayo salbi wey markaasa wixii la doono lagu cadaabaya la jeexjeexaya la salcinaya marna wuxuu samaynaya shay sarci la yihaah wuxuu leeyahay mataqaana qofka inta sidaas mataqaana maaragtay dhacdid gadaala loo tuuro sidaa loo tuuro gadaala loo tuuro yuu leeyahay mataqaana dhakawbin baa la yihahdaa ama qotomo yuu leeyahay dhulka mataqaana kula musmaara gacanta halkaas sidoo kaleetana gacanta kale lugtana sidoo kaleeto ku sameey halkaasna mataqaana bir weyn oo dab ah oo cadaab ah inta soo qaadaan halkaa xabadkaa ka saara saasuu u galay haweenaydii marka ay sidaa tan leedahay waa markay naftu ka baxaysa wey oo ugu dambaysa weeyaan soo arki maysa waa fitnat diin soo arki maysa waa asxaabulqaar oo kale gabadhaan maanta soo arki maysa iska fiiri meesha yani diinta loo soo maray iska fiiri yaa wey marka hadday isoo rumayso rabbinimada usoo noqota caabudana yani dhibaatada kasoo furu yiri haddii kalena halkaa ha ku baktido halkii baa naftu kaga baxay marka intii naftu ka socotay bay halkaa hadalkan tiri baa la yihi hadalkeeda qiimaha uu rabbi agtiisa ka leeyahay
nabi maxamed baa loo sheegay qur-aankan suuratu taxriim aakhirkeeda lagugu sheegaya ay kugu sheegaya marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qaado waxay tiri waa sawjatu fircawne rabbi yaa rabbi rabbigaygow ibni dhis lii aniga kan cindaka adiga agtaada cindaad meeshaan mataqaana maaragtay meel ilaahay la fadhiisamaysee jannadaa loo jeedaahe beyton aqal iga dhis aqalka oo filjannati janna gudaheeda ku sugan wanajinii ilaahu iga badbaadi iga fogay bay tiri min fircawna gaalkaa fircawna oo rabbinimada iyo uluuhiya labadaba kugula tartamay ilaahow kala wad ma arki karayo rabbiyow haygu celinin dib dambe ilaahu hay itusin wey waa mid wa camalihi wanajinii min camalihi fircawn camalkiisa uu wado oo kibirka iyo kufriga ana ilahu iga badbaadi bay tiri midku raacda hayga dhigi dib dambe wanajinii ilahu iga badbaadi bay tiri min alqowmi aalimiin qoomkan reer qibdi oo yani iyagoo arkaaya ilaahay waaxidnimadiisa nabi muuse tusayo ee gaalkaa fircawn la yidhaahda mataqaanaa yani horay ugu sharaxay inuu rabbiha been ah ee ku raacsan weli oo dhaalimiinta reer qibdiyana iyaduba waa gabadho qibdiyad wey lafteedu caqiidadaa kala saaraye ogow kuwaasna camalkooda ilaahw iga badbaadi bay tiri ilah iga badbaadi bay tiri gabadha iyada ah gabadhaan ay leedahay waa yani siiro badan bay gabadhaanu leedahay oo cajaa'ib ah ayay leedahay halkaa marka waxaad ka qaadaysaa maryama iyada ku cadfan tahay bintu cumraane waa hooyadii nabi ciise calayhi salaame taada gaarinin waxaad arkaysaa ko waxaa soo martay wixii loogu mahmaahay yani dadka yani mataqaanaa aqalada wanaagsan oo aqalada ambiyo saalixiintaa jooga haddaysan ku soo raacin iimaanka udkhula annaara maca daakhiliin inaysan waxba aakhira ku taraynin dad wanaagsan baa ay dhahay ood ku dhaadatood ku faanto inay waxba kuu qabanayn taas ayadan dambena imraatu fircawn ka qaadatay yani nin xun naagtii la joogta oo faasiqa inaysan waxba cibaadadeeda udhibaynin balse in laga furo oo faasiqaas laga fogeeyo gabadhaas muuminadda ah haddii la kari karo inay waajib tahay aabbahay yani mataqaana odagii xumaada odaga xumaada ee wiilka xumaada iyo awlaadda dhanba xumaata oo la kari waayo waxay ku binaysan yihiin oo ku taxan yihiin yani nuux wiilkiisii oo kancaan ahaa aabihiisna uu nuux ahaa meesha ilaahay kala weydaariye feeri nuux waxba uma qaban karti waa tii la yidhi iga edab qaadu ilah yidhi mar dambe hay weydi waa ka yidhi xaaskii uu qabana waa tanoo naartay ku jirta waa labo haddii odaga xumaado wiilku saalin xodo waa aasar iyo nebi ibraahim oo kale calayhi salaam oo nebi ibraahimna waa ka maasha allah waad garanaysaa xaalkiisa rasuulka qiimihiis dabki lagu ridi tabciid aabbihiisna waa kii kari waayey taasna ogaa oo saasaa loo kala tegaya haweeneyda fiicnaata saalixadda noqota waa imraatu fircawne iyo ninka faajirkaana inuusan ninkaa faajirkaa si kasta u cadaadiyo gabadha muslimadda ah inaas isku yani dariiqad ahayn qabri iyo qiyaame iyo mataqaana adduunyo labadaba oo rabbi kala saarayana imraatu fircawn aad ku ogaanaysa usan cibaadada waxba u dhibaynin taas ku ogaad meesha ayada marka isku soo wada duub marka ilaahay muxuu rabaa ina aladiina aamanuu camilu saalixaat taasuu ilahay kaa doonaya taasuu ilaahay kaa doonaya adiga maalinka qiyaame labadaanaad ku badbaadaysaa calaa jisri jahannam taasna waa halkaas subxaanahu wa tacaala taasaa loo jeedaa waa maryam ilahi wuxuu subxaanahu wa tacaala waa maryamadii imra'ata cimraan mataqaana gabadhiisa ahaydna mataqaana maaragtay gabadhaha iyadana yani sheekadayda waxay ku taxan tahay sheekadii mataqaana imra'ata fircawne yani yaa ku deeqaa la yihi mahmaahay arrin cajib leh oo qiso ah yaa laydinkugu jidaynaya allatii maryamadii axsanad ilaalisay farjiha iyada farjigeedii waa meesha ilmaha hoobanku ka dhalaan wey
إلى لسي إله بأقوم مرغاتك عين وفنفخنا أنكو أفوفنو إلهي أنكو فيه فرجي هذا قديهيس من روحنا نرشي ونرشي نبي عيسوي حق هذا أو هكذا أفوفني وملك جبريل أنا سودي بني ومرك أيت لما تقالنا أيضا أنت ما يرتي ضل يكفوقاتي ضل أن أركينين ورح كصباح ما تقال بيت المقدس إلى أي ويري وير صالحة والنبي النقنية كو أفوف ما تقالنا كبدا ما يرنا يسوع مريم أبهدنا اللي يقين سبحانه كو أفوف وأسرة خيرية بس مركا وكي ما تقالنا نين إسكا صادقين مركا نحن محيتين قالت إني أعوذ بك قال إني أعوذ منك هذيك إلهي من كان من قال يا بيتر على أي حال إن كنت تقيا بيتر إن أوصلنا يا هداتها وين نحضي أسلم حوي وحن كوي لأهب لك غلاما سكيا بني ويل نظيف إن أنكوه بي عروش هذا يعني فرجي قال اللي قال لي رحم كان وجود به يا إلهي يسوى كاشة مع إنه واسد عسل ومحل كمركب فرجي هذا محله شيء هل كمحله كان مع أن الدرع ماشي هالكاسة وتغانى يوكا أفوفي مركب يعني فرجي جيدو قالي كبعنينا وحو قال متغانى من كيدي والمقالينكا ساس وقصو قد فأنا فيها أنا وذلك هراء صمر فيها تسألوا جيدا كبدا السداسة مركب محله كينيا مركي أي لا تمد قول كذا إلا واتلا فورتكتي فيضو ساس قوة لمنك كافرين تها ويهودها بحير هذا لقد جئت شيئا فريا وعل أي لا تمد النوك كان تمية أدونا الزانيات ما تهوي كنا وعل بعض نوك كان توي توقت إلى أسجل متقنا أوحد لي إن عبد الله آتاني الكتاب سيدي بريب وشرا مارك ماشي يرتاح ودك تمتقنا ماركتي ودرجة يرتاح دربتها أنتوا حصل كسمتي سيدي بريب أدوية الجوجا ويروح هي قد فنينا هو يدي أنا قلنا هي قد فنينا أنا قلنا وعل ما هو يدي ثانيات ما إن عبد الله بوي آتاني الكتاب معجز وهذا يا بجري واجعل النبي واجعل مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وكيا هل كوكي كودي انت حامل هاي كانوها سبحانه وتعالى مركن منكي قتفي وقالتها يهودها واللي الوازن يستي إن يسنسن يسنبوا لها شيء الله تي أحسن فرجها يفرج كذا إلى السي وفنفخنا أن كوفوغني في فرج جوديس من روحنا نرشني يعني متى قالنا حقيقة أو صدقت رميس قبل ناسه بكلمات ربك كلمات كيسير وصحفتي شيث إدريس إيو من نبي إبراهيم كتب يربي أحيان يو كتب إلى كتبتي سي والتوراة إنجيل يسبور مركز أي جوكتا إلا وكتب كتاب كان وكان الوحي من القانتين كو إلهي أدعسن بين كمده سبحانه وتعالى مرك إلهي إيمان خارج عمل صالح ودون إياه إن الجنة هو شو إلهي كو عابده لكن شيء كذا كلاته عقو ترمي سعدك وصلى الله وسلم على محمد الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين